هيا halka ka sheegay codkaaga si musharaxiin lahayd teemana waa musharaxiinta ka aqoon dad maanta cod lahaan lahayd codkaaga yaa siin lahayd dalka Soomaaliya doorashada dalka Soomaaliya u galayo haddaan anigu isku dayo waxaan siin lahaa Xasan Sheekh Maxamed sababta noo shaxad sheekh siin lahayd hadda xasuusta khaatimaysteeda Soomaaliya in badan ba tartamaya musharaxiin codkaaga siin lahayd waxaan siin lahaa sumil baraar kuma jiro farmaajo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا قرأت كسول وإني قصة السلام يا إلى سعنا ودهدي وحن بلعب برنامج سؤالها سوق وأنا يريل الله سعنا وحنا كالقبصة بلداوة كسولو ولا المعن كنا قرأت كسول وندوه يا عضوين لهذين الصومالية كرسي الصومالية وفولو عدك على سيل لاين إلهي بعدله وحي عادل لماذا كشرتيه فرماتش أنا عضوين له صوبت الناس فراتشوا عضوين له فرماتش واني ونكسن وداعد لماذا كله ودلك إلالية أو ما شاء الله أو مسق ما سق لهين أسرع عن شعلا ودلك يدك وكدجن أو ما أنكو كدجن كسولو أنا ما قاعد كنا قرأت كسول بسم الله الرحمن الرحيم أنا قوم بقى كل بلعبي وحلي عبد الحكيم إسماعيل قوح markan ra'yigaygaan hadlo ama afkaartaydaan hadlo yaad isleedahay dalka Soomaaliya uu hogaamin karaa aad kursiga Soomaaliya u codayn lahayd cod lahaan lahayd qodobkaas waa qodob aad important ah Soomaaliya meel kasta joogtana important ah anigu tayada markan ka hadlo Soomaaliya waxay doonaysaa in cadaalad ku hogaamiya farmaajo waxyaalo badan uu qabtay baa jirta madaxweyne farmaajo ragii faraha badnaa ee dalka Soomaaliya soo maray madaxweynayaasha waa ninka kaliya lagu qatay xagga cadaaladda iyo waxqabadka dalka iyo dadka intaba laakiin waxaad moodaa waxyaalo fara badan hadda meesha aniga waraysiga laga qaaday oo gobolka Sool markuu afkaarta wax laga weydiiyay farmaajo taa sida saxiixa qaramada madoow ku jirta gobolada la isku haysto ka dhiga ilaa hadda aan xaqeeda meel lama soo saarin marka waxaan ku soo ururinayaa ama kulay barnaamijyadu way istabayaan waxyaalo badan baa istabayaan gobolka waa la isku haystaa bay yiraahdaan xaqiiqada dhabtaan cid ka laxan mayso nimanka gobolka degan daraawiish laan baa la yiraahdaa nimanka 7 la haysan kariyo meeka laakiin iyaga baanad lagu dhex jiraa ama Puntland ama Somaliland haato adu codkaaga yaa siin lahayd anigu codkayga afkaarta u daadegayaader macay dadjinadana waan ahay halkaan cagaa ku soo dhigaya waxa weeyaan ilaahu mid cadaalada oo cadaalad ugu hogaamiya oo dadkiisa mideeya ilaahay horta markuu horta ka baryana farmaajada kullu hadda wax dhaama garan meeyne tamid walba boorsu sita xaga daban waxba ugu laaban laakiin kan waxaad manta ku hore inuu dhaamo kullu hadda indhaha caalamka isaga far badan yihiin Soomaaliya meel kasta joogtana iyo maamul kasta la joogtana ninkaas ayaad carabka ku hayaan wabillahi tawfiiq waa ka bax kusoo dhow garaadka jaranka garaadka Sool wadhow yaa haddii aad maanta cod lahaan lahayd codkaaga yaa siin lahayd dalka Soomaaliya doorashada dalka Soomaaliya u galayo haddaan anigu isku dayo waxaan siin lahaa Xasan Sheekh Maxamed sababta noo shaxad sheekh siin lahayd hadda xasuusta khaatimaysteeda Soomaaliya marka hadda xasuusta isagoo basiila cid kale wasiir kusoo dhow jaranka garaadka Sool magaca ku bilaabay magacaygu waa Jaan Faarax Yuusuf dalka Soomaaliya doorasho galay 2021 sharciin badan baa tartamaya musharaxiin codkaaga siin lahayd waxaan siin lahaa sumil baraar kuma jiro farmaajo sababta noo shafraato ku siin lahayd farmaajo waxa weeye waa wadani Soomaaliyeed oo dalka ka hiray cadawgii faraha kula jiray midnimo Soomaaliyana keenay wala oran kara heela saasi gaar farmaajo taageeriya ma Soomaaliya oo dhan taageeris hayo maasata soo dhow jaranka garaadka Sool oo ku dhawaayay garaad dalka Soomaaliya 2021 doorasho galaya hadii lagu dhaho codkaaga qof madaxweyne si musharax siyaasi lahayd farmaajo sababta noo sheeg sababta isagoon ba Soomaaliya wax qaban kara hayo maasanta jaranka garaadka Sool ku dhawaay aba magaca ku bilaabay magacay waa Khadar Salmaan Faarax dalka Soomaaliya 2021 wuxuu galaya doorashada hadii codkaaga lagu oran lahaa madaxweyne si musharax siyaasi lahayd madaxweyne farmaajo sababta noo sheeg sababtu waxa weeye deebiku dalka si wanaagsan u haya marka hadda isagoo masiiba codkaaga farmaajo si lahayd oo jaranka garaadka Sool ku dhawaay codkaaga kor u qaaday ku dhawaay haddii maanta 2021 dalka Soomaaliya doorasho galaya codkaaga yaa siin lahayd lagu oran musharaxaasi farmaajo siin lahayd farmaajo sababta loo shafraato ku siin lahayd sababtan ku siinaya macna waa Faaris Baabaha Soomaaliya hayaabto baas soo dhow ku soo dhow jaranka garaadka Sool ku soo dhow garaad haddii maanta lagu oran lahaa dalka haddii lagu oran lahaa musharax si codkaaga yaa siin lahayd musharaxiin siin lahayd siin lahaa farmaajo sababta loo shafraato ku siin lahayd farmaajo waxaan u siinaya isaga dalka waxa qabtay nin lama xaqir isaga dalka waxa qabtay ninkaas marka farmaajo siin lahayd farmaajo siin lahayd dadka farmaajo soo balsaday dhow jaranka garaadka Sool ku dhow
haddii dalka Soomaaliya doorasho gelaya 2021 haddii lagu oran lahaa madaxweyne musharaxiinta tartamaya madaxweyne codkaaga siyaasi lahayd waxaan la maxamed cabdullaahi farmaajo sababta farmaajo ku siilay noo sheeg isaga si wacan dalka wax ugu qabtay si kala ku taageeraysaa isaga taageeraya ayo ma saddex soo dhaw YouTube garaadka soo ku dhaw saac dalka Soomaaliya 2021 doorasho gelaya musharaxiinta tartamaya musharaxiin badan midkeebad codkaaga siilay haddii lagu oran lahaa codeen waxaan shukr baan siilay codkayga laakiin Cabdiraxmaan Shukr waa siilay sababta Cabdiraxmaan ku siilay noo soo teeniyo hadalka dilqaaf kuma noqdo waa siyaasi weyn oo rugcadaaya dawaka Cabdiraxmaan Shukr waa siilay haye way ku soo dhaw jare garaas waan ku dhawaay xagga ka amrada eegbal adiguna haddii lagu oran lahaa doorashada 2021 dalka Soomaaliya doorasho gelaya musharaxiinta tartamaya musharaxiin codkaaga siilay maxamed cabdullaahi farmaajo sababta ku siilay noo sheeg uu kasbaday de in laga shubo uu kasbada ayo ma soo jare garaas waa ku dhawaay dalka Soomaaliya 2021 doorasho gelaya haddii lagu oran lahaa musharaxiinta tartamaya musharax codkaaga sii musharaxiin siilay halyeega de farmaajo sababta farmaajo ku siilay noo sheeg farmaajo waa nin cadaaliya oo macnaha hadeer badalka wax badan buu qabtay oo karan karaayo macnaha waxa weeye waa madaxweynuhu horeeyay ee loo soo oran karo isbedel buu ku sameeyay Soomaaliya intuu xilka hayay marka farmaajo siilay farmaajo ku maqlaya ku soo dhaw jare garaas waa ku dhawaay haddii lagu oran 2021 dalka Soomaaliya doorasho gelaya musharaxiin badan baa tartamaya musharaxiin codkaaga siin lahayd maandil lagu dhasay maxamed cabdullaahi farmaajo sababta farmaajo ku siilay dalka wax badan buu qabtay muxuu xakamida xusuu celiya hawada maar hawada ay gacanta ku dhigay bal faafay wuxuu ka qabtay wax badan buu dalka qabtay farmaajo siilay ku soo dhaw jare garaas waa ku dhawaay ma dalka Soomaaliya 2021 doorasho gelaya musharaxiin badan baa tartamaya mucaarad iyo muxaafida keebaad codkaaga ku biirin lahayd asleeda 2021 ninkaas dalka wax u qabanaya asleeda codkaaga sii lahayd codkayga waxaan siin lahaa mudane maxamed cabdullaahi farmaajo farmaajo muxuu qabtay sababta noo waxyaabo badan buu qabtay Soomaaliya waxaa kamid ah dhalinyaro fara badan soo daayay waxaynu ogsoonahay badayna ku haysato Kenya badayna ku haysato iyo fargelinteena ku haysato Imaaraad inuu la dagaalamay ognahay marka maxamed cabdullaahi farmaajo kuma jiro musharaxiinta sagana codkayga siin hadaan farmaajo siilay 2021 dalka Soomaaliya doorasho gelaya madaxweynaha siin lahayd codkaaga dil u dhasay farmaajo sababta noo sheeg xaq buu leeyahay in codkayga siiyo balwaay ku soo jare garaas waa dhawaay walaan 2021 dalka Soomaaliya doorasho gelaya madaxweynayaal baa tartamaya badan madaxweynaha codkaaga sii lahayd maanta oran lahayd dalka waa badbaadin karaa ama dalka wax badan buu qabtay waxaan siin lahaa maxamed cabdullaahi farmaajo sababta farmaajo sii lahayd noo sheeg wuxuu soo celiyay sharaftii iyo sumcadda qaranka Soomaaliya ma oran kara reer la saafraad si gaar u taageeraya sidoo doontaa ma dhaha waa saan jare garaas aba ka wareegaya waa ku dhawahay magacii Ibrahim Qoryooley weeye Ibrahim haddii lagu oran lahaa 2021 dalka Soomaaliya doorasho gelaya madaxweynaheebaad isleedahay dalka Soomaaliya codkaaga siin lahayd oo isla aad u codayn lahayd farmaajo sababta loo soo farmaajo wax qabadkiisa ayaa ziyaada ah adoon nin reer baydhabo farmaajo codaynaya la saa jooga ayuu salaam aku weydiina su'aal sugtay ku soo jare garaas maanta haddii lagu dhaho Soomaaliya madaxweyne u codayn lahayd farmaajo codayn lahaa farmaajo sababta loo sheeg farmaajo intii u hayay ayuu macnaha de wax muuqdan aan idaacadahan ka dhageystay wax muuqda waa sida intii ka horreysay idaacadaha kama dhageysan jirmiya oo maxaan ka dhageystaa maxaa yaallay meesha intii ka horreysay maxaa dhageysan jirtay idaacad ma jirin la dhageystay hadda idaacadaha farmaajo furay waa jireen laakiin waxaan xiisay kama dhageysan waa maasanta ku soo jare garaas maanta dalka Soomaaliya 2021 doorasho gelaya madaxweynayaal badan baa sharax madaxweynaha codkaaga sii lahaa farmaajo sababta loo sheeg sababta dalkii buu dhisay amnigu ka dhiga intuu hayna wadanka isbedel baa ka muuqday marka saasa ku siin lahaa ku soo jare garaas ku dhaw walaal 2021 dalka Soomaaliya doorasho gelaya madaxweynaha isleedahay codkaaga sii ama isleedahay dalka Soomaaliya ugu soo baxay u rajaynaysaa waxaan siin lahaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sababtaan u siinay waxa uu soo celiyay ammaankii ama iyo dhismihii dambe ee Soomaaliya lahayd iyo xoogga ciidanka ku
kusoo dhawaa garaagsool waa ku dhawaay wanaagsantahay maanta haddii dalka Soomaaliya looga koobi lahaa doorasho galaya madaxweynayaal badan baa sharaxa mucaarad iyo maxaafid baa keebaad isleeyahay dalkan waxba uu qabanaya ama dalkan uu badbaadinaya isleeyahay codkaaga ku biiri lahaa maanta inuu soo noqdo waxaan siin lahaa madaxweynaha hadda talada haya maxamed cabdullaahi farmaajo sababta noo sheeg farmaajo sabab badan baan u siin lahaa waayo horta waa ilaa xilligu wuxuu qabtay horta ammaanka xagga ciidamada arrimaha dibadda waxyaabo badan la soo koobi karin oo aan markii hore wadanka ka jirin buu qabtay marka waa ku taageersanaa ilaa waqtigii ra'iisul wasaarahana anigu waa wati oo ilaa kooytwankii degol madaxweyne qable waa madaxweyne kartile hal adayg leh oo hadallada shisheeyaha iyo waxyaabaha la midka dhigaa ka furaysanaya laakiin danta ummadda Soomaaliyeed wixii dan ugu jirto ummadda Soomaaliyeed magacada farmaajo ugu jirtaa farmaajo maasata kaamera weegiya ku dhawaa labada kooy la tag dalka doorasho Soomaaliya doorasho kaliya madaxweynaha islaamar u rajaynaysa inuu soo baxo ama codeyn lahayn anigu waxaan u codeynay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la xilli soo baxo sababta loo sheeg sababta ninkaas waa nin u qalma dalkiina dib u dhis balaaran baa ka muuqda saadirti ninka waxba yaan la kurkuurin baan leeyahay ninkaas u qalma kuwa kale waa dhuuni qaatayaal dalka waxba ka naascad hadda dalku in badan waxba ka indhacad dalku wuxuu baahan yahay isbedel siyaasadeed ninkaas wax weyn buu qabtay dalka iska daa 8 sano 10 sano 20 sano ninkaas oo qalmaa sida aabihiis siyaad barre sida adeerkiis siyaad barre 20 sano wax ka badan ninkaas waa u qalmaa wayaan la kurkuurin ninka hala doorto aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane daawashada daawatay fadlan subscribe ka noo saar like to share ta nala socdo inta ay hadda mara